Walaalo ka tirsan dadweynaha ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaab ayaa saakaroornimadii hore isaga kala yimi xaafadaha waaweyn ee magaaladu ay ka koobsato si ay uga qayb galaan munaasabadda xuska 18 May ka soo wareegtay 20 guuradii aasaaska qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ana isaaka dadku ay siteen boodhar iyo halkudhigyo ay ku muujinayaan dareenkooda iyadoo sidoo kalena socodda dhaadheer ay ku soo marayeen dhammaan shaqaalaha kala duwan ee wasaaradaha ciidamada qalabka sida ururada bulshada iyo ardayda waxbarashada oo si weyn uga dhex muuqday munaasabadan 18 May iyadoo ugu horeyntiina ay ku biyashubteen xarunta fagaaraha beerta xuriyadda taasoo gabi ahaanba ay buux dhaafiyeen dadkii halkaasi isugu yimi. Ana munaasabadu ay ku qabsantay garoonka weyn ee kubadda cagta ee Daalo iyadoo dadweynaha shacbi weynaha ku dhaqan gobolka Sanaag ay munaasabadan ay kala qayb galeen wafdi hogaaminayo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ay ku weelinayaan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasiir ku-xigeenka maaliyadda iyadoo munaasabadaasna ay sidoo kale ay goobjoog ka ahaayeen mas'uuliyiinta maamulka heer gobol heer degmo madaxda dhaqanka iyo qurba joog. waxaana ugu horeyntii halkaas ay ku soo bandhigeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka uu caanka ku yahay gobolka Sanaag waxaana sidoo kale halkaas lagu soo bandhigay awr ku gaashaaman qalabka hidaha iyo dhaqanka ee caanka ku yahay gobolka Sanaag. waayuguna halkaas salaan ku soo bandhigay qeybaha kala duwan ee ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaana ugu horeyntii munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Ceergaab Mudane Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa isagu faahfaahin ka bixiyay maalintan ay qiimaha ay u leedahay guud ahaan shacbi weynaha reer Soomaaliland haddii ay joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisa. waxaana uu ka warramay socdaal dhawaan ugu tagay caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaana ay ku aadeen waddanka Djibouti taasoo uu sheegay in waxyaalo wax ku ool ah ay kala yimaadeen isla markaana uu sheegay barnaamijyo lagu horumarinayo gobolka. waxaa madashaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag Cali Cabdi Hurre ayaa isoo ku dheeraaday ahmiyadda maalintan ay u leedahay guud ahaan shacbi weynaha reer Soomaaliland isagoo halkaasna gudoomiyuhu uga hambaliyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo saddexda gol qaran iyo guud ahaan shacbi weynaha reer Soomaaliland. waxaana uu ku soo dhaweeyay gudoomiyuhu wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Warsame Siciid Cabdi ayaa isaguna sheegay inay maanta tahay wax lagu farxo. waxaana uu sheegay inay maanta indhaha beesha caalamku ay si weyn ay u soo eegayaan reer Soomaaliland. munaasabadan ay goobjoog ka ahayd wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwe Ilhaan Maxamed Jaamac ayaa si diiran u hambaliyay guud ahaan shacbi weynaha reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan. waxaana wasiirku ay sheegtay in ay gobolka Sanaag ay maanta ay kala qayb gasho munaasabadan taasoo ay farxad gaar ah ay u tahay. waxaana wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Marwe Ilhaan Maxamed Jaamac ay ku boorisay guud ahaan shacbi weynaha ku dhaqan gobolka Sanaag in ay isku tiirsanaadaan. waxaana munaasabadaasi soo afmeeray wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Axmed Cali Xaaji Cadami ayaa isagu sharaxaad dheer ka bixiyay maalintan qiimaha ay u leedahay reer Soomaaliland. waxaana wasiirku uu sheegay in guud ahaan Soomaaliland iyo dabadaba si weyn looga wada xusayo. waxaana wasiirku ka warramay horumarka siyaasadeed ee gaadhay xukuumadda Soomaaliland taasoo uu sheegay inay dhaqso ictiraaf rasmi ah ay u heli doonto Soomaaliland. waxaana wasiirku gabagabadii halkan hambalyo uga diray dhammaan ciidamada qalabka sida meel kasta oo ay joogaan. dabaaldeggan xuska 18 May ka soo wareegtay 20 guuradii aasaaska qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa dhinaca amniga si weyn ay isaga kaashanayeen ciidanka bilayska iyo ciidanka militariga. waxaana ugu dambeyntii ay dhoolatus ballaaran ay ku sameeyeen ciidanka guutada lixaad ee fadhigeedu yahay magaalada Ceergaab kuwaasoo soo maray shaariciyada waaweyn ee magaalada iyadoo wararka naga soo gaaraya degmooyinka gobolka uu ka koobsadana ay sheegayaan in munaasabada caynkan oo kale ay ka qabsoomeen degmooyinka iyo tuulayowgaasi. Cali Aadan Daahir, telefishinka caalamiga Home Cable TV, Ceergaab.